السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaal. haddaba maanta ayaa halkan waxaan hortiina usoo istaagay inaan idiin sharaxo muuqaal aan idiin soo gudbin doono oo ku salaysan habka ugu fudud ee aad Facebook markii aad soo geliso haddii aad page leedahay muuqaal oo aad u saaran karto thumbnail ama sidee aad thumbnail u saaran kartaa iyo waxaa kale oo aan ku tusi doonaa ma la socon kartaa xogta Facebook-kaaga ama Facebook page-kaaga aad soo dhigto ama halka uu marayo ama xogtiisa ama inta qof ee like siisay ma ogaan kartaa kaliya adiga oo isticmaalayo teleefankaaga kana ogaanayo xogta teleefankaaga. fadlan haddii aad channelkan naga daawanayso channelka Fahad Page waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarato gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada muhiimka ah ee halkan kusoo gudbino. haddii aad dhanka Facebook page-ka naga daawanaysana waxaan ka codsanayaa inaad Facebook page-ka kala dhahdo muuqaalkana aad like siiso si ay ugu noqoto dhiirigelin. haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta. haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta, marka hore thumbnail waxaa la yiraahdaa coverka kore ee lagu xayeysiisto muuqaalada markii la soo geliyo YouTube-ka ama la soo geliyo Facebook-ka. haddaba sidee ayaad ku saaran kartaa Facebook-ka cover ama thumbnail sidee ayaad ku saaran kartaa kaliya adigoo isticmaalayo Android phone-kaaga oo aan isticmaalinin laptop ama wax kale. marka hore waxaad tagaysaa Play Store-ka, kabacdi markaa Play Store-ka tagto kabacdi waxaad raadin doontaa studio aad raadin doontaa application-ka la yiraahdo Creator Studio. markii aad qaybta kore ku dhufato oo hesho waa kana application-kan ayaa la yiraahdaa waxaa soo degsatay in ka badan 5 milyan ayaa soo degsatay sidaad u jeedaan 5 milyan in ka badan ayaa soo degsatay. adigana waad ka mid noqon kartaa waxaana si 100% u hubaa inaadan application-ka marnaba ku khasaarin. haddaba haddii aan soo noqono application-kan sidaad u jeedaan aniga hal muuqaal ayaan geliyay waxaadna kala soconaysaa dhammaan inta qof ee muuqaalka la daawatay iyo midka la daawaday iyo like aad heshay iyo dhammaan waxaad kala socon kartaa analysis-ka ama sarakaca uu sameynayo ayaad kala socon kartaa. halkan ayaad kala socon kartaa kaliya adiga oo soo galayo kaliyana fiirinayo, balse haddii uusan application-kan kugu jirin ma saaran kartid xitaa thumbnail. haddaba muhiimadda ayaa ah sidee ayaan thumbnail ku saaran karaa. marka hore home-ka ayaa imaanaysaa, kabacdi waxaa ku dhufanaysaa muuqaalka aad gelisay page-kaaga ayuu kusoo saari doonaa qeybahan oo dhan muuqaalka iyo muuqaalada ayuu kusoo tixi doonaa. kabacdi waxaa ka dooran doontaa muuqaalka marka aad dhigtay ama aad rabto inaad thumbnail ka saarto ayaad ku dhufanaysaa. kan aniga thumbnail u saaran balse tusaale ahaan idinkaga soo qaadan doonaa waad ku dhufanaysaa. markaa ku dhufato kabacdi sidan markuu ku keeno kabacdi waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay edit-ka calaamada yar ee edit ku qoran tahay qalinka aad ku dhufanaysaa. marka qaybta ku dhufato waxaa ka sii dooranaysaa qaybtan add ayaad ku dhufanaysaa. qaybtan add-ka marka aad ku dhufato kabacdi waxaad dooranaysaa sawirka aad rabto inaad thumbnail ka saarto ayaad dooranaysaa. markaad doorato kabacdi oo sidan u doorato oo next ayaad dhahaysaa. markaa next dhahdo kabacdi sidan ayuu kuu saari doonaa. kabacdi qaybtan safeta kuuma soo saari doono ilaa intaad halkan wax ku qorayso. haddii halkan aad ku qorto markii aad halkan ku qorto qoraalka kabacdi qoraalka muuqaalka wuxuu ku salaysan yahay halkan qaybtan sare ku qori doontaa. qaybtan sare markaa ku qorto muuqaalka save ayaad dhahaysaa. kabacdi saving ayuu dhahayaa sidaa ayuuna kugu saari doonaa. waxaa kale uu faa'iido leeyahay baalkan sidaan hore kugu soo sheegay waa sida YouTube Studio telefoonada dadka ugu jiro oo kale waxaad kala soconaysaa dhammaan waxyaabaha page-ka aad geliso inta qof ee like ku siisay inta qof ee fiirisay iyo inta qof ee walibana muuqaaladaada fiirsatay. fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay ama Facebook page-ka aad iga daawanayso waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad Facebook page-ka follow soo dhahdo. haddii aad dhanka YouTube iga soo daawanaysana waxaan kaa codsanayaa inaad dhanka YouTube-ka subscribe saarato muuqaalkana aad like siiso si ay ugu noqoto dhiirigelin.